qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii ay xildhibaanada golaha shacabka ay ku ogolaadeen in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale madaxda ugu baaqday in dib loogu laabto wadahadaladii doorashooyinka iyadoona qoraalka qaramada midoobay lagu soo dhaweeyay doorka doorashada ee Ra'iisul Wasaare Roble. qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa go'aanka baarlamaanka federaalka ee dib ugu soo celiyay heshiiskii doorashada ee 17 September kadib codsigii madaxweyne. waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaalida inay ku noqdaan wada hadalka oo ay diyaariyaan doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin. waxaa kaloo qaramada midoobay soo dhaweynaysaa doorka doorashada hogaaminta ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu yiri qoraalka qaramada midoobay. dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dhinacyada saxiixay heshiiskii arrimaha doorashada ee 17 September inay degdeg u kulmaan si loo dhameystiro hirgelinta hanaanka doorashada dalka. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale loogu baaqay hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida in aysan wax shuruud ah ku xirin wada hadalka arrimaha doorashooyinka. war-saxaafadeedka ayaa ku booriyay dhinacyada in ay bilaabaan dhameystirka iyo dhaqangelinta heshiiskii 17 September si loo hirgeliyo doorashada furan. waxaan ugu yeeraynaa dhinacyada uu ka dhaxeeyo heshiiskan inay si degdeg ah u kulmaan iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirin wada hadalka si loo dhameystiro hirgelinta doorashada ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale Mareykanka waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan diyaar ay ugu yihiin gacansiinta hogaamiyaasha Soomaalida si loo hirgeliyo hanaanka heshiiska 17 September. Mareykanku wuxuu diyaar u yahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu gacan ka geysto qabashada doorashooyinka ayuu raaciyay qoraalka. dhinaca kale ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo howlaha doorashada iyo amniga ugu wareejiyay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble iyaga oo sidoo kale ka hadlay ciidamada ku dagaalamay dhawaan magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay ururada bulshada rayidka ah waxa ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay gacan ay ka geystaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho iyaga oo sidoo kale dalbaday in guddi loo saaro dhibaatadii ka dhalatay ciidamada ka soo horjeeda muddo kordhinta iyo kuwa ka amar qaadanayay madaxtooyada ee ku dagaalamay magaalada Muqdisho.